الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر وهذا مركلة مغالكينا مع شركينا عشر كان حنكون برندونا وحلا ASB ما دام هري 10 عن سوق هذا أفر 10 عن سوق هذا هذا حسوستيد login page registration dashboard iyo home page waxa la haay intiina badan waa la soo sameeyay waa la soo wada diray laakiin waxa la fahmay dadka qaar kood waxay fahmayeen afarta feel qaabka loo sameeyo waxa rabaa marka muuqaalkan inagu hadlo afarta page aan sameeynay qaabka la soo xiri karo inagu hadlaan yaa raba oo afartooda hal page aan ka sameeynayo ugu horeyn sida caadigeed feel ay maanayna new alena sida caadigeed dabcan taas waxaan rajaynayaa qofkaas inuu fahmayo waxaan dooran doontaa website wax la dooran doontaa daaqada markay ku soo baxdo labadan framework ah jirtaan ana Visual Basic wax la hayo iyo sidoo kale Visual C# jirto labada markay mid hoosaan dooran doonaa failashan meesha ku jiraan waxa jiro templates ah laakiin mid uu kareeyo imtixaan dooranayna kadib magaca website ku yeelanayo magaca waa in iska bedeshaa marka magaca website wana ku qoran hada marka magacaas iska bedeli doona tusaale aan MBO fragrance oo kale tan sameeynaya mid kala hore sameysanaay laakiin MBO fragrance oo bixin doona kan MBO fragrance waa leh sababtoo ah ama mid ay sameysanaay wana ku dara kan number 2 ku dara adiga marka projectigaada lagu diray magaciisa halkaas gelin doonta ma aha magacaaga waxa gelin doonta magac lagu diray ee projectiga hadii lagu diray inventory oo badeeca inventory waa badeeca Soomaa dukaanka ama inventory lagu diray systemka magac u bixi hadii hospital uu yahay hospitalka magac u bixi lama rabo hospital kaliya meeshana ku qortid waxa loo baahan yahay hospitalka wuxuu yahay inaad ku qortid sababtoo failashan hadhow tolo laguma soo laaban karo marka magac lagu siiyay oo projecti aan ku siiyay magac hagaas geli oo magac u bixi hadii uu yahay lawyer geli hadii uu yahay wax kale to tusaale ka meel cafe hadan ku diray oo kale to Morla cafe iyo waxyaalaha la midka kale to inaad gelisid iyo kafeega asameyn haduu dukaan yahay supermarket haduu yahay hebel supermarket waa ina dhigi kartaa oo sheyga magac u bixisa okay kadib aan dhaho markaan dhaho daaqadan la soo furi doona oo beedka goor ay soo bixi doonto waxa laga yaabaa marka inay waqti qaato marka ma ku soo beesaan oo kale to maxaa sameeynay marka window atage sida leedahay yes leedahay automatic magac intuu ku soo galaa waa kana MBO fragrance 1 maadaama mid hore u sameysana MBO fragrance ani wankan number 2 dan saasa u raacsiiyay marka waxa rabaa page-kii waxa rabaa mid inaan soo diro halkan website ama halkan system ay sameysan halkan system waxa rabaa afarta page oo lagu diray inaan soo dirsan kartid ugu hore waxaan bilaabaynaa horta bootstrap inaan la soo digto hore aan soo sheegnay hadii aadan fahamsanin qaabka bootstrap loo soo digo muuqaalkan ka horeeya jirto oo ama muuqaalka koowaad aan uga hadlayo loginka xagaas aad tagi doonto halkaas ka soo daawan doonta okay bootstrap marka la soo digtay daan failasha soo furi doonta failka waxa ku jira 5 folder ku jirta vendor waxa laayo CSS iyo 5 folder waa 5 folder marka mid u dooran shantooda selection ku sameyn doonta ama highlight ayaad ku sameyn doonta khibrad kaliya leedahay waa copy gareene waxa imaanay systemka aad sameynaysid magaca dushiisa imaanay raad kaliya ku leedahay dib waxa ku leedahay basta hadii ku shaqeyn weyso failka la soo digtay wuxuu ku jira zip as dirteeda marka failka zipka soo fur dib 5 folder soo qaado haduu ku shaqeeyo waa ku shaqeeyo okay waa hadii laakiin bastigan ku shaqeyn weyso oo ilad xaq laga haysta dib bastia leena basti marka dhano intuu noo socdo 5 folder intay soo gali doonaan kala soo gali doonaan waxyaalaha templates oo muhiim ah noogu jiro oo failashan u baahanaanay marka inta imaana failka la soo digtay oo bootstrap ka imaanana waxaan ka hormarina waxa la login raadinay login waa kana maadaama kan uu yahay ugu horeyn raad kaliya leeyahay login-ka intaan soo furin waxa u baahnay page la login meeshan ku soo darsado raad kaliya leeyahay magaciisa dushiisa aad leeyahay aad marka dhaw aad new item leeyahay daaqadana la keenaya wali waxa dooran doonta Visual C# intan waxa ka dooran doonta web form C# maadaama sameynayso web form dooran doonta magaca marka default ku deena sababtoo hadhow failashaada ina kala aqoonsatid raba mid walba marka rangareynaysid ina kala faasantahay raba marka login ku qor login oo kale ku qor login form ama login waxa ku qor okay adandano daaqadan usoo aan soo furay okay daaqadan usoo markii lagu soo furo keena rabnaa inaan keeno marka waxa imaanana login keena marka imaano raad kaliya ku leeyahay andan kadib waxaan ku furi doonaa wax la haayo open wisa leeyahay ni software oo kugu jiro computerka oo lagu keen karo koodku ka ay ama lagu edit gareyn karo editor ah
وكفر كرتاني هذا هم كفر يا فيشل ستوديو لو كنت مسدح كان السوفت وير كذا استعمال كاسا كفر دونا intuu iisoo gali doono marka labadan fail sidee ku kala aqoonsan kartaa ama sidee ku kala ogaan kartaa aga oo asalka oo saxda ah sameynaysa login ASP ku qoran waxa ku qoran login HTML maadaama kan HTML iyo saasa ku fahmi kartaa okay headkana u baahan headka marka labada head intuu dheesa u baahanay kana soo koobi garaysan ilaa headka ka imaanayo intana soo koobi garaysana intana le control ila saaraya andin kadib koobiya le ka imaana title-kana u imaana title-kana inuu haylaan saara marka replace waxa la ku sameeyna code-ka ku baasta gareena mana control v le ama baasta waa dhigi kartaa ya okay intaas marka sameeyo meeshii kale ku soo laabana body-ga u baahanay body-ga maadaama u baahanahay dibtana ka bilaay sameeyeen dibtana ka bilaay ilaa hoos taga ilaa hoos aan geenaya hoos ilaa inta geen doonta marka ilaa inta geen doonta ilaa hoostana geen doonta marka waxa sameyn kartaa dib adoon gelin body meel ku furiya sooma dibtan ku furiya calaamada klik soo siinay waa soo yaraana tagna soo yaraana saddex marka ana leedahay intaana highlight saaray bis qabta hoosana mu baahan copy ale oo soo copy gareena marka soo copy gareena inta imaana inta marka imaado waxa u baahnay labadan body dhaxdooda inaan dhigo marka waxa rabaa inaan sameeyo labadan dif ina highlight gareeyo dib replace ina ku sameeyo macnaha labadan dif waa tiraya mana dalida hadaartu waa dhigi kartaa laakiin waxa ka fiican inaad dooratid kadib basta ina ku dhaado asaatir ma automatic oo tirmaya marka daan ran gareeno marka login page aa sameeyay waxa rabaa inaan ran gareeno login page keena okay marka internetka shay kas waa kala soo dhigi kartaa okay maadaama aan ran gareenay saddex shay waa bedeli karnaa taala meeshan waxa ku qoran welcome ama welcome back waxa la meeshan hadaa magaciisa ku qoran kara sidoo kale to labadan waa iska saari kara hadaa u baahanahay social media accounts kan waa iska saari kara hada ugu soo hadalnay taas hadda kuma laabanayno marka waxa rabaa page-kii hadda soo furo inta cadaan waa marka sidee blue oo kale ugu bedeli kara blue oo kale ama kala sidee u siin kara daan muuqaal kala ka sameyn doona laakiin hadda harna inaad bedelaan raba kalarkeeda oo kale ta imaana inta marka imaado HTML-kii furna imaana body hadda xasuusatid meeshan ka bilaabay inta meen body waxa raacsan wax la class background gradient primary waxa loo jeedaa blue loo jeedaa marka la joogo ASP hada kale waa idin soo diri doona mid warka dootiin ayagana marka kan waxa sameeyna calaamadana ka tagaya intan kaleeto waa harka intan highlight saara classka intan highlight saaraya intan copy gareysana inta marka copy dhaho page-ka imaanaya body meesha ku furiya imaana inta imaana body meesha ku furiya body waa kana sooma body dushiis marka imaado inta hoosta marka imaado bracket-ka meesha ku xiranya marka imaado amar space leeyahay space leeyahay inta control v ku leeyahay space marka hoogaa waa yareena laba space maadaama aan geliyo hal space ku filan hadda marka aan ran gareeno mar labaad aan ran gareeno kalarkiin waxa rabnaa shaashada inuu isbedelo blue isku bedelaan daaqadii haday ko waana ku tusi doono marka uu soo furmo waana la arki doontaa adiga marka waxa laga rabaa marka inta fiiri blue waa sooma haday ku tuso waatan haday saano ee daaqadii waa mid daaqadii furnad hadana saana ka dhigin geesaha maxaa blue gaan adiga marka waxa loo baahay kalarka geesaha oo kale inaad iska bedeli kartid inta login-kii waa dhaxdii waa hadii la rabaa la bedeli karaa laakiin anaga ma rabno geesahan kaliya rabnaa inaan bedelo marka kama maadaama asaas ku sameeynay waxa kale oo baahanahay aan ku soo daro wax la haayo registration right kaliya leeyahay add new page leeyahay add new page leeyahay item web form doona sida caadiga waa taqaanaa default magacana iska tirtiri doona waxa ku bedeli doonta magac oo ah registration ku bedeli doona registration marka ku bedelo add leeyahay la wadadii anoo maraayo horta linkigan ama login-kan oo HTML-ka iga xir maadaama wixii aan ka baxsaday okay waxa imaana hadana bootstrap aan la soo degayo waxaan raadin doonaa folder ku qoran registration ama register ka imaana aad kaliya ku leeyahay marka waxa rabaa open with ina dhaho isla software-ka ina ku furo u baahana isla software-ka marka ku furo asigana waa ii soo bixi doona dabcan sheet-kiisa imaana all marka waa soo dooran doona ilaa intaana soo dooro copy soo dheh daadi waa taqaana SB-ga imaaw marka title-ka dhan highlight saarayna marka highlight saaro control V ku leeyahay best man halkan ku deena mar labaad hadana kii aan ku laabana HTML-ka aan code-kan soo furnay body-ana oo maana color-kan waa u baahan inaan soo qaato ogow kii hadee login-ka ku soo sameeynin amaleeto laakiin waxaan ka hormaray kana ka hormar daaqadana soo xira waa soo yaraana intaana soo doorna
intaa markaa soo doorto control aan dhaho right click aan ku dhaho copy aan dhaho intaa imaanaya aan kadib labadan div isla ayagana isla dooro kadib waxaa ku dhahdaa control v ku dheh ama basti ku dheh kadib waa raan gareynaynaa waxaa rabnaa registrationka inaan aragno qaabkuu egyahay haddana mar kaleeto asigana waxaa waaye kalar cadaan oo soo saari doona backgroundkiisa sidii hore kii hore aan u bedelayni ayaa u bedelina registrationkana waa kana registrationka maadaama lagu soo saaray waxaan oo kaleeto hadda haddii xog aan gelino mailna ma gelinaya sababta database kuma xirna waan gaari doona taas casharad kale ku qaadan doona cafwan marka inta imaano aan kusoo laabto markaleeto htmlka imaaw kalarkaana raba inaad soo qaato asigana soo koobi garayso soo koobi garay boodiga meeshuu ka furan yahay imaanaynaa so inta meen boodigan inta keen space dheh control v ku dheh meeshaan kadib hadda aan rangareyno mar labaad aan rangareeyo in beedkeyga ama registrationka kalarkiis gadaala blue laga dhiga aan fiiriyo adigana mar kalarkaas sida anigu bedelay ayaa u bedeli doontaa oo mid mid ayaad u bedeli doontaa sida adoo raacayo waa kana registration kalarka gadaal waa lii bedelay blue ka dhigo ama kalar kaartid waa ka dhigan kartaa kalaradan insha Allah failkooda waa idin soo diri doona group WhatsApp ka idin soo dhigi doona insha Allah okay maadaama registrationka aan sameynay hal mar aan bagan dhaho kan aan joojiyo waxaa u baahan wax la dashboardkii haddana sameynaa raadkayga alle isla failkii aan jooga add new leeyahay add new itma dooran doona dib isla wadadii hadday page markaan sameynay la maraysa kaliya magac ay ku kala duwan yihiin marka inta imaam marka dashboard meeshan ku qor dashboard aan dhaho aad soo dheh marka dashboardkii koodkiisa inta ka keenaynaa waay failsha kuma jiro moogta anaa groupka soo dhig whatsappka marka halkaas ka dooran doonta waa kana inta kuu soo dhigay group whatsappka ku yaala halkaas kala degi doonta adiga inta imaana waa soo qaatay maadaama soo qaatay marka dashboardka marka linkigan oo dhan control ayaa leeyahay sababtoo kan aawato hadda asaa iswato wax dhan asaa wato html css javascript wax dhan asaa wato saa darteed control v ku dheh kii hor dhan waa tiri mid kale ku baasgareeyaa saasoo la soco dib aan rangareeyo marka wax soo baxaayo ayaan isla arkaynaa ay intuu soo furmaayo wax badan ma qaadan doonto wuxuu u baahay internet dashboard aa sameeyey dashboardkan waa iska dashboard anaad imbio fragrance aan sameynayay systemkii waxaa waaye inventory badeeco waa laakiin lama baahna dashboardkan waa bedeli doonaa ogow laakiin hadda dashboard maadaama qaabka loo sameeyo aad ka baratay template dabcan template waa taqaanaa template ahaan waa sample waa marka hadhow waa iska bedeli doonaa dashboard kale isticmaali doona koodka waa iska bedeli doona ogow laakiin adiga intaasaa lagaa raba inaad soo sameysid okay intaas markaa u gudbo dashboard saanaa ku sameynay waxaa ii dhimi waxa lahaa homepage marka saa u sameeyo right keligaa leeyahay add new item aa leeyahay intaa imaanaya inta markaa imaado add new item aa leeyahay daan page qaabka loo soo darsado qofkas horaa u soo arkay waana wada taqaaniin ma aha inaan mar labaad ku soo celinayo inta homepage waxa lagu soo dar homepage iigu soo dar homepage maadaama ku soo darsay add soo dheh asigana ani marka le homepage inta ku haystaan whatsappku igu jira ka soo qaadan doona laakiin keega kan oo kan ah homepage ma soo qaadan doona sababtoo ah mid oo aniga aan leeyahay asalkiisa soo qaadan doona oo homepage ah oo aniga aan leeyahay ayaa soo qaadan doona marka adiga waxa laga rabaa homepage kaaga inaad bedelin kartid ama linkiga aad ku soo dhigay whatsappka inaad soo bedelin kartaa loo baahay meesha laga soo bedelin waa taqaanaa ayaa ka soo bedelay okay marka control a like waa iska doorna control v ku leh halkan marka waa rangareynaa homepage-keyga ama rangareeyo ku soo baxayo ayaa rabaa inaan ogaano oo aan isla fiirino waaya ilaa uu ku soo baxayo wax yar u qaadan doona okay sorry waxaan doortay dashboard aan doortay sorry maadaama aan keenay aan ka imaano homepage-ka qaabkan ku soo baxay sababta imbio fragrance yaa sameynay soo maaha marka homepage wuxuu leeyahay wax laayo homepage caadi ah waay oo homepage marka linkiga aan soo dhigay adiga waa bedeli doontaa ogow shopping wax laayo about contact iyo cart login uu leeyahay adiga marka ani isku homepage ma naqan karno sababta ani waxaan iibiyo waxyaalaha lahayo luxury ama barfuuniska ayaan iibiyaa ama systemkii wuxuu ku saabsan yahay project ah inventory ama badeeco marka adiga waxa laga rabaa isku home manihin marka saa darteed waxa laga rabaa homekaada iga inuu ka duwan yahay هذا ما سنتي وهنوبلنا 10 كان 10 كيغا نوبلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته